السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawaneysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. waa habeenimo talaada Arbaca ay soo galayso taariikhduna waa 21 bisha Luulyo sanadka 2026. haddaba barnaamijkeena caawa waxaan idinku haynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn. qodobada barnaamijkan idinku hayo waxaa ka mid ah Sacuudiga oo kulaylkii uu ku bilowday, maraakiibtii oo bilaabay inay qaataan amarka Xuutiyiinta, dekadihii Sacuudiga oo go'doomin ay ku bilaabatay. haddaba wararkii ugu dambeeyay xiisada ka soo korortay badda cas iyo Bab al-Mandab ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Trump oo ku hanjabay inuu weerari doono Xuutiyiinta iyo xarumaha nuclear-ka ee Iran. odaga ma la kululeeyay sidee wax u jiraan? warar baan yana idinkaga hayaa. Kuwait oo u yeertay safiirka u fadhiya Iran dalkeeda si ay cabasho ugu muujiso dhibaatada lagu hayo Kuwait iyo markab shalay Kuwait ay lahayd oo Iiraaniyiintu ay gantaal ku dhufteen. wararkaas ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa. waxaa sidoo kale yana aan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha Lebanon iyo Trump oo ku kulmay aqalka cad. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa idinku haynaa. inta aan ku jirnana wixii akhbaara ee soo kordha waan idin la socodsiin doonaa. waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka wararkii ugu waaweynaa xaaladda gobolka Bariga Dhexe iyo dagaalada halkaa ka soconaya iyo wixii warar ee soo kordhay dhammaantood ayaynu halkan idinkaga soo gudbin doonaa. haddaba intaynaan qodobada barnaamijka u gudagalin waxaan idin xusuusinayaa inay ahayd maanta talaado. channelkeena YouTube-ka ee qisooyinka Nadaara 2 waxaan soo gelinay qisada talaadada, iyadoo maalmaha talaadada iyo jimcaha aynu soo gelino qisooyin cusub. channelkan qisooyinka Nadaara 2 dadka qisooyinka jecel halkaas ayay iyaguna ka daawan karaan. haddaba waxaynu ka bilaabaynaa ama gudagalaynaa barnaamijkeena. Xuutiyiinta amarkoodii la qaatay. nimankii Sacuudiga way yaaban waatay ku hanjabeen Sacuudiga maraakiibteena waa difaacanaynaa wixii noo soo socda ay ku hayeen. adeer nimankan horaa loo bartay. Xuutiya la yiraahdaa. Amerikaana ka qayliyay. Amerikaan maraakiibtiisa iyo Israa'iil say nagta ugu hayeen iyo wixii ka yimid wax ka celi kara ma jiraan. isbaara kala waaye. meeshaas hadday soo degaan say u soo degeen waaye. Iiraan xaggee degan tahay intana Xuutiya degan. hadda waxay ku bilaabatay Sacuudiga maraakiibtiisii wax soo mari kara meesha ma leh. waxay kaloo ku bilaabatay markab kasta oo shirkadi leedahay oo Sacuudiga u socda iyo mid Sacuudiga ka yimid banagta ka saareenayna. 6 markaba kala carartay oo Xuutiga ka dhuumatay. qaar Sacuudigu leeyahay iyo qaar Sacuudiga u socday. Sacuudigii inta ka soo harweeyay maraakiibta iyo shirkadihii waa loo digay. email loo qaybiyay. Xuutiga waxay yiraahdeen cidii Sacuudi aadaysa iyo midii ka timaadaba nagta ka saarayna. sheekadii marka badda cas erkay gashay. haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay ee caawa arinta laga qoray. haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa warbixin goor dhaweyd qoray ku saabsan 6 markab inay dib ugu laabteen meelihii ay ka yimaadeen kadib markii digniinihii Xuutiyiinta ay qaateen. xukuumadda Yemen ee caalamku taageero iyaduna arintan waxay ku eedeysay inay Iiraan ka dambayso oo markaa Iiraaniyiintu ay ku lug leeyihiin sida ay Yemeniyiintu sheegayaan. haddaba kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa talaadada maanta ah waxay sheegeen inay markaa ku qasbeen 6 markab inay dib uga laabtaan badda cas kadib markii ay u hanjabeen ayna sheegeen inay beegsan doonaan maraakiibtaas. waxaana la sheegay maraakiibtaasu qaar inay ku socdeen Sacuudiga qaarna ay ka yimaadeen in markaa ay halkaa ka wareegteen oo goobahoodii ku laabteen. warbaahinta Xuutiyiinta ayaa caawa soo xigatay ilo military oo sheegaya in 6 markab ay ku laabteen dekadihii ay ka yimaadeen. haddaba warbixin la soo saaray oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ayay ku warantay in 2 markab oo shidaal siday oo kuwa xamuulka Sacuudiga ah oo u socday dhanka iyo Aasiya
inay bedeleen meeshii ay mari lahaayeen oo ahayd baabalmandab iyagoo dib ugu laabtay inay maraan kanaalka Suways iyo dhanka iyo Masar iyagoo ka cabsaday xuutiyiinta inay nagta ka saaraan. haddaba bartilmaameedyada xuutiyiintu waxay sheegeen kooxda xuutiyiinta inay fariimo email ay u direen shirkadaha maraakiibta ayna u sheegeen cid kasta oo tagta dekada Sacuudiga iyo kuwa ka yimaada iyo kuwa u socdaba inay beegsan doonaan. haddaba xuutiyiintu waxay sheegeen howlgallada in markaa ay saameyn doonaan dhammaan maraakiibta. amarkan ay xuutigu ku go'doomiyeen Sacuudiga ayaa soo baxay 20kii bishan aynu ku jirno Luulyo. warku waa cad yahay sheekada Sacuudi haddaad ilaashan karto maraakiibtaada kaala ilaaliya ka dhacday. laba markab oo shidaal wado Sacuudigu leeyahay sida wakaalada wararka ee Reuters ay qorayso caaw waxay rabeen inay dhanka iyo baabalmandab soo maraan laakiin sheekada way xumaatay. xuuti waxay yiraahdeen arwa ninkii halkan soo mara. xuuti beenu sheega waxba weerari kara miyaa la dhihi karaa waa la soo bartay ninkan waa la isbartay meeshan waa la isiyaqaanaa cidaan la aqoon tabarteeda ma jirto. xuuti gantaal ma hayso iyo xuuti daroor ma hayso yaa dhihi karaa niman iska dhaaf meeshan dariska la ah Israa'iil ka xariifta bay waay. labadii markab markay arkeen baashu inay serious tahay oo xuutiga loo dhawaan karin Sacuudiga labadiisa markab waa jeesteen. meeshan fudud ay rabeen abal inay ka baxaan maartay baabalmandab soo maraan dhanka iyo Djibouti iyo soo maraan saas u soo maraan Aasiyadaasi u socdeen. laakiin hadda maxay ku qasabtay inay gadaal u baxaan Masar kor maartay kanaal Suways soo maraan kor ka soo galaan. xaalku marka jiqu ku yahay Sacuudigii xaaladdu waa ku xuntaa leeyahay. maxaa u geeyay Sacuudi nimanka xuutiga isu taabanayaan dawladda Yemen ee Sacuudigu taageerana waxay leedahay sheekadan xuuti kaliya ma Iiraan ka dambaysa. waxay rabtaa Hormuz u xiran intana in la xiro qoto lagu xiro ayaa meeshan la bilaabay leedahay. marka sheekadaas halkaas maraysa waa ka gudbaynaa qodobkaas. qodobka kale ee muhiimka ah caaw wararka soo kordhay waxa kamid ah ninkii Trump ahaa wuxuu sheegay laba meel inuu weerarayo xuutiyiinta inuu weerarayo uu sheegay hadday wax dhibaato ka geystaan oo yiri badda cas eeriyadeeda waa weerari doonaa. midda kalena Jabal Fas waa meeshii nuclearka hoos ugu qarsan yahay Iiraan wuxuu yiri iyana waa weerari doonaa. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay akhbaaraadka arrinka ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ku hanjabay inuu weerari doono goobta la yiraahdo Jabal Al-Fas ee Iiraan iyo sidoo kale inuu weerari doono xuutiyiinta Yemen. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu yiri xayiraadda ka jirta marinka Hormuz ayaa sii socota mana jirto cid ka gudbaysa halkaas xaaladda way xun tahay. waxaa laga yaabaa uu yiri inaan dhawaan si adag u weerarno goobta Iiraan ee nuclearka ee la yiraahdo Jabal Al-Fas. xaaladda marinka Hormuz saameyn kuma yeelan doonto doorashooyinka dhexe ee dalka Mareykanka ayuu yiri. Iiraan ma heli karto mana heli doonto hubka nuclearka. waxaan si weyn hoos ugu dhignay awoodii Iiraan. goob kasta oo nuclear oo Iiraan ay adeegsato waa weerari doonaa. haddii ay wax ka dhacaan badda casna waxa uu yiri waxaanu si fudud wax uga qaban doonaa arrintaas inagoo ka jawaabi doonaa. macnaheedu yahay inay weerari doonaan xuutiyiinta. haddaba heshiiska iyaga cusub ee Iiraan aan la geli doono waxa uu noqon doonaa uu yiri mid markaa ku saabsan waxa la doonayo in markaasi la qabto. Iiraan hadda waxay doonaysaa ayuu leeyahay wada hadal laakiin wada hadalladu waxay ku imanayaan wax la isla ogol yahay. marka ninka Trump marka wuxuu leeyahay aniga badda cas haday wax ka dhacaan xuutiyiinta waa weeraraya. xuutiyiinta asaga marka hore heshiis ka dalbaday dowladda waxaan wuxuu ku seexinaa Sacuudiga iyo wadamada kale ku seexinaa baale xuuti iyo asaga way shaqaalaan. marka Mareykanku leeyahay mari waay
markaasuu wuxuu dhahay isdayna lagu kala joogaa. hadda marka haddii aan isdayna uu ka soo tago ninkan oo uu bilaabo inuu maaragtay sacuudiga ishayaan xuutiga hadda sacuudiga u heelayo markaa dee waa laysku baaba'ayaa xaalku marka halkaasuu marayaa. xaaladda marka caawa aaday u kacsan tahay. Hormusna waa qab halkanna waa xiran tahay iyadoo xiran camal waa inkastoo la leeyahay sacuudiga basa la weerarayaa laakiin meel xaaladdu aan halis tahay maraakiibta laftirkooda way ka baqayaan. marka xaalku marka halkaas wararkaasaa soo kordhay. dhanka kale kuwait ayaa waxay u yeertay safiirka iiraan ashtaka waayo. marka kuwait waxay ka ashtakoonaysaa maraakiibtii shalay ilay nagta laga saaray qaar la garan waayay cidda iska leh. kuwait waxay leedahay annagaaba iska lahayn qaarkood maraakiibta oo meesha lagu qararamsaday Hormuz maxaa marka soo marsay maba la mari karaaba leeyahay. marka aan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay kuwait ayaa waxa ay u yeertay safiirka iiraan iyadoo ka ashtakoonaysa oo ka cabanaysa weerar loo geystay markab shidaal qaadayay oo Hormuz marayay. wasaaradda arrimaha dibadda ee kuwait ayaa safiirka iiraan ee dalka kuwait u yeertay waxayna u gudbisay warqad cabasho ah oo ay kaga cabanayaan in la bartilmaameedsaday markab weyn oo kuwa shidaalka qaada oo kuwait ay leedahay shalay oo isniin ahayd kaasoo doonaya inuu ka gudbo marinbiyoodka Hormuz iyadoo la sheegay markabkaasi inay tiro ka mida shaqaalihii saarnaa ay ku dhaawacmeen oo halkaa dhaawacyo ay kasoo gaareen. marka ashtakadii marka tii hore waa la daalay. ashtakada gantaalaha iyo maalin walba nolol maalmeedka ka mid noqotay. maraykanka meesha joogo jugta lagu hayaa kaas ma ka ashtakoonayaan. kaas hadda waxa waaye qayladu hadda waxay ashtakadu tahay markabkeena maxaa u taabateen. markabkeeni meesha marayay shalay markabka shaqaalihii waa ku dhaawacmay ilaa maraakiibta meesha lagu qararamsanayay nimankaana iska lahaa. marka hawshaas halkaasay baraysaa. ugu dambayntii marka caawa barnaamij waxaanu kusoo qaadanaynaa madaxweynaha Lubnaan ayaa muddo 17 sano iyadoo madaxweyne Lubnaan uusan aqalka cad tagin ayaa tagay caawa wuxuuna kulan la qaatay ninka la yiraahdo Donald Trump. madaxweynaha Lubnaan ayaa halkaasi marka kulan albaabada u xiran la yiri ayay halkaa ku wada qaateen. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee sheekada laga qoray. madaxweynaha Lubnaan ayaa la kulmay Trump aqalka cad waxaana bilowday wada hadaladoodii Joseph Aoun madaxweynaha Lubnaan iyo Donald Trump waxayna ku kulmayaan aqalka cad ayay ku kulmeen wax yar koor. waxaana la sheegay sida wariyaha Al Jazeera ay ku soo waramayso halkaasi in kulanku uu yahay mid albaabadu ay u xiran yihiin. Aoun waa madaxweynihii ugu horeeyay Lubnaaneys ah ee gala aqalka cad muddo 17 sano ah. haddaba ziyaaradan ama booqashadan ayaa waxaa la sheegay inay imaanayso kadib markii maalmahan Maraykanka uu ka shaqeynayay heshiis dhexdhexaadina uu ka dhexwaday Lubnaan iyo Israa'iil. marka shirkaasu marka goordhow ayuu soo dhamaaday. marka waxaa hadlay ninka la yiraahdo Aoun madaxweynaha Lubnaan wuxuuna sheegay hadafka ugu dambeeya shirarkan ka dhacaya Washington inuu yahay in cadawtinimada u dhaxaysa Lubnaan iyo Israa'iil in la soo gabagabeeyo ila al-abad. abidkeen inaan mar dambaba colaad isku qaadin oo nimanka isnabad gelin yaa ka yeelay adeero arrinkan iyo wuxuu ninkan madaxweynaha Lubnaan ninkan ila al-abad uu kuleeyahay ila al-abad ma shaqeynaysa meesha nimanka waaba sheegeen waxay leedahay Israa'iil al-kubra raadinayna Lubnaan iyo dhulkaana qaadanayna. marka ila al-abad wax leeyahay meesha ma jiraan adeero. marka kulankaas isaguna hadduu soo dhamaaday. haddaba waa arki doonaa wixii akhbaarada soo kordha. war hadda soo dhacay isaguna wuxuu leeyahay labadii maalmood soo dhaaf Maraykanka wuxuu ka shaqeynayay laba meel oo tijaabo ah in Israa'iil ka baxaan ciidanka Lubnaan la geeyo. ciidanka Lubnaan markay meesha tageen rasaasa lagu furay. Israa'iil ciidankeeda ku furay aw nabadi. nimankan marka way yaaban ayaa hadda waxay leeyihiin Israa'iil heshiiskii jibinaysa. ninkan madaxweynahoodii muxuu ahaa ila al-abad heshiinayna. marka sheeko waalna meesha marka socod. barnaamijka caawa naga intaa fakar aragti waxaad hayso noo soo qor inta aan mar kale kulmayno. nabadgelyo.